wasiirkii hore wasaaradda ganacsiga Somaliland Abiib Xasan Filfil kana tirsan golaha dhexe xisbiga kulmiye isla markaana ay wehelinayaan xildhibaan cibaado maax cilmi oo ka tirsan golaha deegaanka Gabiley uqaal salaadiin aqoon-yahan siyaasiyiin qaar kamida guddida kaambeynka xisbiga kulmiye ee heer gobol ayaa gaadhay qaar kamida deegaanada waqooyiga iyo galbeedka Gabiley halkaasi oo taageerayaasha xisbiga kulmiye ee deegaanadaasi ay si diiran ugu soo dhaweeyeen wafdigan ballaaran ee uu horkacayay wasiirkii hore wasaaradda ganacsiga Somaliland Abiib Xasan Filfil aan ku horeeyay deegaanka Ceel Bardaale taageerayaasha xisbiga kulmiye ee deegaankaasi oo ku labisan calanka astaanta u ah xisbiga kulmiye kuna dhawaaqaya halku dhagyo ay ku taageerayaan xisbiga kulmiye iyo musharaxiintiisa ayaa si diiran u soo dhaweeyay wafdiga xisbiga kulmiye anigu waxaan gaarsiinayaa dar ilaa bood meel kasta ay joogaan hanbalyo ka soo gooday kashka iyo laabta codkana waxaan siinanaa musabiixi codka yaale guusha yaale walaalayaal sidaan isku ognahay waa sidaa isku sheegaynaa ma jirto codkeennu halkuu yahay waan ognahay تكليهن isku sheegaynaa waxa weeyi maalinta 13 yeelaynu ka habsaamin sanduuqa ee aynu soo tabaabushaysanno ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inaynu codka meel ku ridno waana kulmiye marka hore ilaahay baa mahad leh alxamdulillah rabbil caalamiin marka labaad waan idin mahad celinaynaa sida diiran ee xamaasada leh ee aad u muujiseen taageeradiina aad la barbar taagantihiin xisbiga kulmiye iyo musharaxa Muuse Biixi Cabdi aad la barbar taagantihiin aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa wixii aanu idinka filaynay ee aad ahaydeen baad muujiseen waa wixii la idinku yaqaanay Somaliland oo dhan baad dooranaysaa xisbiga kulmiye ma inaga abuurnay baa ka hadhaynaa inaga bilowna baa ka hadhaynaa maanta xisbiga inaga ka sharaxan ninka ka sharaxan wuxuu ka soo jeedaa deegaankani adigoo maanta ninkii ciyaarta tumaya wuxuu yiri awalba waan qalaadinaye caawana waa qudhaydii habeenku arooska ninkii aroosyada kale ka ciyaari jiray wuxuu yiri awalba waan qalaadinaye caawana waa qudhaydii dee maanta kulmiya sharaxan Muuse Biixi baa sharaxan inaga sharaxan deegaanka sharaxan codkeena halkaa baa leh codkeena halkaa baa loo isku ognahay taal iskama dardaarayo waxaan idinku dardaaraynaa calaamadu waa taa laan qaybta madawle calaamadii wata halka xisbiga kulmiye hortiisa iska talaabtaa weeyaan meel la yaani gaari waa ta dhexe ninkaan garanaynu sheega idinkuna isku sheega dumarkana u sheega ballanteennuna waxa weeyaan 13 maalinta isniinta waa kulmiye iyo Muuse Biixi kulmiye hawaaro kulmiye noolaado qaar kamida taageerayaasha xisbiga kulmiye ayaa carabka ku adkeeyay inay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin codkooga xisbiga kulmiye isla markaana maalinta 13 bisha ee codka loo dareerayo ay diyaar u yihiin inay codkooga siiyaan xisbiga kulmiye soo codka uma hayno soo Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Saylici soo uma hayno soo saas kuma ogin barbarkay ka baxdo waa bakayla qale waa kulmiye ha noolaado guusha ha helo Allahu akbar sidaasay isku ognahay waxa kale oo wafdigu amba baxeen dhinaca deegaanka xunshalay oo sidoo kale lagu soo dhaweeyay halkaasi oo wasiirkii hore wasaaradda ganacsiga Somaliland Abiib Xasan Filfil uu kolono iyo shirducoodyo kula qaatay deegaankani kaasi uu kaga dhaadhicinayo sidii taageero mug iyo miisaanle ay ula garab taagnaan lahaayeen xisbiga kulmiye halkaasi oo qaar kamida mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ay goobtaasi iskaga casileen gabi ahaanba mas'uuliyadii ay u hayeen xisbiga mucaaradka wadani
waxayna calankii xisbiga mucaaridka wadani ee xafiisyadooda sudhnaa ay ku bedeleen calanka xisbiga muxaafidka kulmiye mas-uuliyiintani xisbiga mucaaridka wadani ee iska casilay gebi ahaanba mas-uuliyaddii ay ka hayeen xisbiga mucaaridka wadani ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxaan gudoomiyey xisbiga wadani ugu ololeynayay jiidaan maanta kana dooranay iyo kana horta wasku kaaymi waxaan sa dooranay oo aniga maanta xisbiga ugu soo biirnay kulmiye ee xiliyeleysma maahay saaka waa babaxnay waxay ku soo gabagabaysatay gabaye gartay mowqifkiisa iyo wixii mabdii loo jeeday iyo xagga loo jeeday ba gartay aad iyo aad baan dadka ugu hambalyeynaya aad iyo aad baan ugu hambalyeynayna wuxuu baa la wada doonayaa maxay hayday waxba laba kala doonayo maanta waxaan u jeednaa guushii kulmiye waa maalintaynu ku ridi doono un codka un bay noo haray ololihii wuu dhammaaday waxaan haweenka leeyahay aan ragga leeyahay codkeennu waa kulmiye ballanteennuna waa kulmiye calaamadaha laydiin sheegay ta dhexe waa inaad yar oo fudud ugu samaysaan haddii kale waynaga xumaanayaan maantaannu aragnaa idinkoo israacay isku soo bixi toddobaad ee ugu dambeeyey xisbiga kulmiye muddadii ololaha waa maalintii u dambeysay ee gebagabada ahayd gebagabo markay aragku tahayna kolley waxa la isku yimaadaa waa tilmaan iyo dardaaran marka hore aad baan idinku mahad celinaynaa sida diiran xamaasadda leh ee iskarabtaagga iyo qiimayntu ay ka muuqato safka hore unbaad kaga jirteen iminkana amalka laydinka qabaa waa inaad kaalintiinnii buuxisaan weeyaano dee ta aan idinku arkayna waa tii laydinku yiqiinay weeyaan waananu idinka mahad celinayna saddex iyo tobanka bisha isniinta inagu soo socota nin walba kaarkaaga xagga dambe waxa kuugu qoran halkii aad ka codaysay qofka aan garanayn calaamadda halka la calaamadeynayo oo saddexda xisbi ka dhaxa weeyaan kulmiye labada xariiqood ee hareeraha ka xigay midna yaanay ka gaadhin iska tallaabtan aan macallimiinta iyo inamada idinla joogay idinku dhiibnay nin walba ka baaraan deg qofku markuu meesha galayo tusa dardaarankeenu waa ka dardaaranka labaad waxa weeye waxaynu isku ognahay inaynu codkeenu ku hubsanno sanduuqa muuse bixi xisbiga kulmiye ha noolaado xisbiga kulmiye ha noolaado musharraxuna ha noolaado Soomaaliland ha noolaato idinkuna noolaata aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa Cabdirasaaq Axmed Hayaal Ilka Case Som News TV Gabilay